waa weyn wanaagsan. Ramadaan kariim asxaabta nagu qaaliya kusoo dhawaada muuqaal kale iyo warbixin kale oo aad u xiiso badan. Muuqaalkeena iyo warbixinteena waxa uu ka hadlayaa atriishada dhawaaganka ah ee Tara Sutaria oo shaacisay aktarka ay u aaminsan tahay aktarka ugu jirka qurxoon ama ugu dhisan aktarada gudaha Bollywoodka. Haddaba Tara Sutaria waa kuma? Tara Sutaria waa atriisho dhawaangal ah taasoo dhawaan tiyaatarada loo saaray filimka Student of the Year oo ay la jilayaan aktarada kale ah Taagar Shroff iyo Ananya Pandey. Atriishadan oo dhawaan xayeysiin ballaaran u sameynaysay filimkeeda Student of the Year qaybtiisa labaad ayaa waxa ay la weydiiyay su'aal ah aktarka ay u aragto aktarka ugu jirka qurxoon ama ugu dhisan aktarada gudaha Bollywoodka. Haddaba atriishadan ayaa ku jawaabtay aktarka ay u aaminsan tahay aktarka ugu shidan inuu yahay aktarka lagu magacaabo Hrithik Roshan. Tara Sutaria ayaa sheegtay Hrithik inuu yahay aktarka ay ugu jeceshahay aktarada gudaha Bollywoodka ayna weligeeda taageeri jirtay. Iyadoo ka hadlaysa arrinkan waxa ay tiri, Hrithik dhab ahaantii waa aktarka ugu shidan aktarada gudaha Bollywoodka. Sidoo kale waxaan aad ugu helaa dhowr cadeyntiisa iyo wejigiisa soo jiidashada badan. Haddaba atriishadan ayaa waxa ay taageerida aktarka Hrithik Roshan kula biirtay aktarka ay isla jilayaan filimka Student of the Year ee Taagar Shroff kaasoo hore u shaaciyay inuu isaga si weyn ugu daydo aktarka Hrithik Roshan uuna yahay aktarka ka dambeeyay inuu noqdo aktar. Sidoo kale Tara Sutaria waxa uu diyaarsan filim lagu magacaabo Marjavan kaasoo la taaban doono 2 bisha Oktoobar ee sanadkan, waxaana filimkaas atriishadan la jilayaan aktarada kale ah aktarka lagu xanto inuu ka dhexeeyo jecel ee sida Siddharth Malhotra iyo aktarka Ritesh Deshmukh. Waad ku mahadsantihiin daawadashada muuqaalkeena. Fadlan kanaalkan subscribe saar, share garee, comment ka bixi. Waad ku mahadsantihiin daawadashada muuqaalkeena. Waa inoo muuqaalka xiga. Mahadsanediin.